marka haddaan wax yar ku soo noqdo arrintii akhuuna Ismaaciil barakallahu fi waladna Ismaaciil waan dhageystay anigu musaabaqadiisii waan dhageystay maadaama aan lajaan taxkiimka aan kamid ahaan jirayna waxaan ku qiyaasay aniga agtayda ay kamid ahayd inuu kow ama laba mid gali doono marnaba uu ka hooseynaya isma lahayn ana waan dhageystay musawiisaan ogaaday faj'atan waxa meeshii soo baxay sheeko kale oo ah ninkii waaba la eriyay wadanka waa laga saaray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar ayaa soo dhaweyn ballaaran ugu sameysay masaajidka uu imaamka ka yahay Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi Ismaaciil Cumar Madar oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhawaan tartanka Quraanka uga qayb galay dalka Imaaraadka Carabta isla markaana la sheegay inay saameysay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan dalalka Khaliijka taasi oo sabab u noqotay in dib loogu celiyo Soomaaliya wuxuuna intaasi kadib عسومت كهلي دولة قطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عبد الله محمد علي معلنك إسماعيل مدر ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar uga mahad celiyay sida wanaagsan ee ay u qaabileen. runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Qatar khaasatan magaaladan Dawxa runtii ikraam aanan ka arki jirin yani jaaliyadaha kale ayaan halkan kala kulannay runtii wadamo badan aan tagno Khaliijka yani kamid ah laakiin maanan arkin runtii Soomaalida joogto ikraamka iyo runtii aan kala kulanay halkan oo kale maanan arag jazaakumullahu khayran waan kaga mahad celinaynaa runtii waa wax aanan ilaabi doonin oo yani mar walba niyada aan ku hayn doono wajazaakumullahu khayran runtii waxaan ilaaho kale ma garanayo. Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi oo madasha ka hadlay ayaa Ismaaciil ku booriyay dadaalka uu sameeyay wuxuuna sheegay markii uu qiimeeyay inuu gali lahaa kaalmaha ugu horeeya balse nasiib darro taasi aysan dhicin wuxuuna tilmaamay inay wax laga xumaado tahay in la siyaasadeeyo quraanka le xaqiiqatan aad baan ugu faraxsanahay walaalahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan Qatar ku nool زيارة أي نسوي زيارتين هل كأي نقول مادين مساجد كيجا الحمد لله هذا أنه رمضان كي كبحني أيام شوال بانو كجرة وأيام وذا بركيسن وذا خيرة بركات بانو تيجيكم هذين زيارة عند سواب بوقتين بارك الله فيكم. ثانيا وحان سيجار وسود وينينا إخواننا ولا الذين صوب بغضي ودن كانوا جيمت أخونا الشيخ عبد الله هي تلميذ كيسار دقيسة إسماعيل وقصاد لوضع سعوتان هجرتي مع المدويت سبب ساس درت هدنا ودنك halkan u yimid Qatar u yimid waxay radaan tacliiq yar ka bixiyay arintaas xaqiiqatan markii ayna soo gaadhay arrin aan ka xumaanay bay noqotay sababtoo ah maxaafisha islaamiga iyo musaabaqaadka quraaniga in umuur siyaasiya la soo dhaxgaliyo ma aysan ahayn xaqiiqatan yani قرآن بالشوي يمد أرضي بقرآن لو ويري مسابقة دبي كذا على ومسابقات يأد راقئة أو مال سر كتاج المسابقات كعالمي كعالم كإسلامي
خير فربضنا قدمتي تشجيع يدلين يعني يلقلين واحد أرضنا عالم كمال كتمادة لله الحمد ورت إلهي ومهد له وحان سنة كسته أن ماشى كو أرجنا يملك له سابقات لو سميي سومالي كسو قيم كلي شترتن كاس أو ودمك للدوان كسعته laga yaabaa 5 6 marmar 10 bay gaarayaan hadday rabaan mid walba wadan mumathalaya waana Soomaali marka hadaan wax yar ku soo noqdo arintii akhuna Ismaaciil barakallahu fi waladna Ismaaciil waan dhageystay anigu musaabaqadiisa waan dhageystay maadaama aan lajaan tahkiimka aan kamid ahaan jirayna waxaan ku qiyaasay aniga agtayda ay kamid ahayd inuu kow ama laba mid gali doono marna buu ka hooseynaya isma lahayn أنا وأنا لقيت مستوي سنة وقاعد فجأة وحا ماشي صوب حي شيء كله أو نكي وابل إريو ودن كوارا كسر وحفلتي ولا مسؤول لا مسؤول أو ما حد عاي إلا واحد يقول أنت عارنت سياسة ضمانتي حرقفتها وضمانه ولا لها نحدو ضمرتي مركا واقعهم أنا رنتي الرن أذوفر حن بين نقطي سببته يقول أنا محسود أحكي لي شيء كذا دولته هاي هستين سياستها اسمه خلافين هكذا بودين هاي دقالين ماشي ربنا اسكال دعين لكن أرضي القرآن كأتمد إن أرنتاس لقوس عليه واللي يرى الدولة دي أتكسعتي ما دام قدر أن على قدر أقوين أنا كسكو إكرام بينه درجة أد متيستين كسين بينه وضك إنه قبح أرن أذف الحب بين قطي مركورتا أرنتاس wiilka kan uu ducaystayo Facebook waa ku soo leeyga maqashiyay isagoo leh insha Allah wax ka khayr badan baa Ilaahay ka rajaynay asoma wa khalif li khayran minha wax ka khayr badan hadda uu helayo yani wanaagan iyo shuhradan iyo soo dhaweyntan iyo ummadii oo dhan oo khayr ku taqaanay oo taasi wax ka khayr badan bay noqotay ثانيا يعني waxaan uga ducaynaynaa safaaradda Soomaalida جزاهم الله خير أي هل كان جوكتا كالين توين أي كقاتين أرنتها سنة دولة قدر أنقذ بيان أو أيرك جبري النقطة جبكي سوغاري يدبكي سوغاري ونوحبك قلبنا إنه دم بكل هاي إن لو كبوا على الأقل لا إكرامه ولا سود ويرجع كشقيين دولة قدر وشقي فأنا آدي أذوق هذين إن شاء الله تبارك وتعالى سيدا سوك عليه يعني نشكر يعني دولة قدر بان آدي أذوق هذين إن طلابا أي أرتاس أي كقاضي أو أن فيلا يعني نوح كلاينا هاي يعني أنه مسجد بان جوجنا برنامج كأنه برنامج قرآني هول كلكم جرنو سياستنا وحبنا كم قلين زي ما قلنا لكن وحن جعل لها إن أي رسالة قادو dadkii saayelay in falka ay sameeyeen fal wanaagsan oo san ahayn quraanka arimahaas oo kale laga nazaho oo laga dahiro oo aan la soo dhaxgelin in risaaladaas ay gaadho ayaanu jecelahay insha Allah hada kadibna inaan dib arinta loogu noqon marka tawfiiqda Allah na waafajiyo insha Allah barakallahu fiikum wa jazaakumullahu kull khair gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Qatar علي أسكر أيا إسقنا شيء إني يسود وينيان إسماعيل إيه معلن كيسا وعنا كذا واجي من ماذا كذا حجرتا جالية الصومالية دل كقدر يعني وحن سود وينيا ولكن إسماعيل مرة بعد أنا أقول كسود وينيا مقعد جالية الصومالية دوحة قدر وحد دحشوكتا ضد مديسن ولا رهاية الحمد لله ومحن كل ذاي جاليد مid qura safaaraddeedii oo isku xiran ilaahay idankii guul weyn baad gaari doontaa guusha aad gaari doontana waxaan ku leenahay waa inaad maxaan ku radaa ilaahay idankiis aad waxa culayska aad sido mas'uuliyadda waa inaad mid weyn qaadaa sidii ummadaada aad wax ugu kordhin lahayd oo ilaahay idankiina ilaahayna inagu wada guuleeyo hadalkayga waan dheereeyay intaasaan ku soo koobaya waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqahayna waafajiyo si kastaba ha noqotee
ismaaciil ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si weyn uga faallootay warbaahinta soomaalida iyo weliba kuwa caalamka kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in laga saaray tartankii qur-aanka xilli aan la shaacin natiijadii. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warbixin kooban oo aan uga hadlaynay soo dhoweynta jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka qatar ay u sameeyeen ismaaciil cumar madar, waxaana idiin soo jeedinayay anigoo axmed darwiisha. tan iyo kulantii dambe, nabaadiino.